Telesom Company. أنا مقعد عبد الساعد الله أحمد قال كانت لبعض إن هاكم حكومة عندنا شركة تلسوم يو هم كبير تي في واحد اللي هاكا كسي وضع مع مشين السيارة الإنجليزية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد عبد الكريم إسماعيل waxaa ka mid ah tartamayaasha ku guuleystay barnaamijka aadka faa'iidada u leh ee soo deysay shirkadda Telesom ee Kadis. ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Telesom oo runtii maxay toolay ku hawlan sidii macaamiisheeda ay u qancin lahayd. mar labaad waxaan mahadcelinayaa telefishinka caalamiga ah ee Home Cable TV kaas oo ku helay runtii inuu soo gudbiyo muuqaal iyo waqti cayiman. ugu dambeyntii waxaan u bogaadinayaa shirkadda Telesom inay runtii ay si maxay toolay kordhiso adeegan aadka u qiimaha badan ee Kadis oo runtii oran karno dhinacyo fara badan ay isku jiraan. dhinacana ka eegno ay noqon doonto aqoon oo aqoontaasina isku jirto saddex mid ama dhaqan ama diini ama maadi. marka runtii aad baan ugu bogaadinayaa shirkadda Telesom. bismillaahi raxmaani raxiim. anigu magacayahay maxamed saciid ismaan kana mid ah tartamayaashii barnaamijka Kadis ee xalay kana galay kaalinta saddexaad. waxaan halkan uga mahadnaqayaa shirkadda caalamiga Telesom Company iyo telefishinka Home Cable TV. بسم الله magacayga waa Cabdikhaalq Mustafa Abdullaahi waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Ilaahay kaasoo igu guuleeyay in barnaamijka Kadis ka galo kaalinta koobaad. waxaan kaloo mahadcelinayaa shirkadda Telesom taasoo macaamiisheeda ugu talagashay inay barnaamijka Kadis kaga faa'iideystaan bisha Ramadaan kaasoo ka kooban barnaamijkeena qaybo badan, qayb diineed, qayb aqooneed iyo qaybo kale oo dhaqanka kamid ah. waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa telefishinka Home Cable TV kaasoo si toos ah ugu soo daayay barnaamijkan anagoo xaafadaha joogna kaga soo jawaabina su'aalaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyagana.